Waxaan ka imiday magaalada Fiiq meel la dhaho oo dowladdeegaanka ka tirsan. reer Hargeysa ku soo dhaweey Si wanaagsan dad fiican oo qalbi wanaagsan si wanaagsan la soo dhaweey. Wallahi wax fiican baan kala kulmo saan u maleynay maaha. Inaan la soo dhaweynayo waxa dad qalbi wanaagsan iyo inaan la helin. Walladhi anzala minas samaa'i maa'a lakum minhu sharabun wa minhu shajarun fihi tusimun. حسن خضر أنا من دولة إثيوبيا waxaan ka imid dowlad deegaanka Oromada ee Itoobiya waxaan Hargeysa u imid dowladan oo lagu baranayo culuum fara badan sida xadiiska siirka iyo siirada rasuulka sallallahu alayhi wasallam وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبع دكتور شيخ سعيد محمد فارح ugu soo dhawow dowladda misaadka ka socotana bal warbixinteeda الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله لقمان ميديا بانو سلامية هي كاميرا ماندا دورتنا waa dowladii marka dhowr sano soo socotay waxaan ku qabanaa masaajidka Cumar Cismaan dowladani waxa weeyaan culimada waaweyn ee dalka ayaa ka soo qayb gasha qaybaha muxaadarooyin imika waxa socota muxaadarada Dr. Xasan Cali Warsame jeedinayo qaybina waa kutub oo ilaa 4-5 kitaab baa socda culimada dalka waaweyn Dr. Khadar Sheikh Jaabir Sheikh waxa weeyaan Yaasiin Sheikh Maxamed Cabdilcasiis iyo maskiinkaygan ayaa kutubta runtii ka akhrina waxay soconaysaa dowladda muddo 2 wiiga waxaan ugu tagay dhallinyarada iyo waxa weeyaan caruurta yaryar ee iskuuladoodii dhammaadeen halkay meelaha marmari lahaayeen ay meelaha carcarari lahaayeen inay ilaahay subxaanahu wa tacaala sharcigiisa quraankiisa iyo sunnihiisa ay ku bartaan ilaahay subxaanahu wa tacaala waa noo fudeediyay hawsha tan culimada ka soo qayb gashay iyo ardayda iyo waxa weeyaan howlwadeenada macallimiintu ka yihiin iyagana waxa la jazaakumullahu khayr jazaa sheekh ardayda ka qayb galaysa waa imisa waa sanadkii misaad ardaydu markii ugu dambeysay nambarku wuxuu mariyay 120 arday ilaa 1 arday in yar bay hore sano u dhaafeen 1 ka arday waxay ka kala yimaadeen kulli way wareysan doontaan dad baa Jabuuti ka yimid dad baa xitaa Muqdisho ka yimid dad baa meelo kala fog gobolada dalka laftarkooda Berbera Boorame Gabiley Arabsiya meelo badan baa laga yimid runtii oo ay barnaamijkan ka soo qayb galeen oo qaraabadoodii iyo ehelkoodii la soo degeen sidii barnaamijka uga faa'iideystaan iyagana waan u mahad celinayaa sanadkii hore ayuu isku dubadhiciisii ugu weynaa isku dubadhacay ka hore dhowr sannadood hore laakiin si yaroo ka fudud buu dhici jiray oo ka yaraa hooseysa laakiin qiimahan iyo dadkan iyo jawaa'istan sanadkan runtii iyo kii hore ayaa runtii ugu weyn alxamdulilah jawaa'is aad iyo aad u qiimo badan oo cimro leh oo laptop leh oo mobile leh oo waxyaalo fara badan leh oo qayima runtii ayaa insha Allah tacaala la qaybin doonaa xaflad weyn baan qaban doonaa 12 bisha wixii ka dambeeya marka barnaamijku dhamaado imtixaan laga qaaday la kala baxo ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu khayrkeena waafajiyo insha Allah adeero ugu horeyn soo dhawow magaca mushtaaq xagaad ka timid Gabile halkan maxaad timid inaan dowladan barto maxaad jeceshahay waxaan jecelahay inaan diinta barto waa ilaahay bay ku dhawaanay iyo cilmiga inaan dadka u faafiyo assalaamu calaykum goor walaal soo dhawow xagaad ka timid Waan dhawahay walaal ugu horeyn waxaan ka imiday magaalada Fiiq meel la dhaho oo dowladdeegaanka ka tirsan. waxaan u imiday dowladda Fiiq dowlad deegaanka ka tirsan tahay halkan maxaad timid waxaan u imiday dowladda way sida caadiga ah maxaad baratay waxaan bartaa cilmiga iyo quraanka xifdigiisii tasiixana waan ku jiraa hadda Hargeysa inaad timaado oo cilmiga diiniga u timaado maxay kaaga dhigantay aad baan ugu faraxsanahay marka reer Hargeysa ku soo dhaweey si wanaagsan waa dad fiican oo qalbi wanaagsan si wanaagsan la soo dhaweey maxaad kala kulantay mise maxaad ka filaysay wallahi wax fiican baan kala kulmo saan u maleynay maaha maxaad maleysay inaan la soo dhaweynayo waxa dad qalbi wanaagsan iyo inaan la helin imika maxaad heshay dad wanaagsan aad u fiican way culuum maxaayabaad halkan ka baranaysaa waxaan baranaa siiradii nabiga tafsiirka quraanka iyo 2 kitaab aadaab waxaad kaloo ii sheegtaa quraanka ma bartay ma dhamays inagu nasi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس
إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تصيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. جزاك الله خير. أدنى حكومة هالنقيا هرجسك سودو مجال أسمرتيه. حسن خضر أنا من دولة إثيوبيا أنا موجود هنا في هرجيسا. magacaygu waa xasan khadiir waxaan ka imid dowlad deegaanka oromada ee Itoobiya waxaan hargeysa u imid dowladan oo lagu baranayo culum fara badan oo laga faa'iidayo sida xadiiska tafsiirka iyo siirada rasuulka sallallahu alayhi wasallam waxaan rajeynayaa inaan ka faa'iideysan doono مثل الحديث والتفسير وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم نستفيد إن شاء الله. حاجة waxaan ka berbera maxaad uga timid waxaan ugu yimid markii cilaankaan maqlay cilaanka dowladda ee la dhiganayo ayaan sidii bal adiguna ka faa'iideysay challenge-kaas maxaad ku baratay waxaan ku bartaa cilmigii shareecada fiqigii siiradii cilmigii shareecada dhan baa lagu baranaya marka waxaan isleeyahay ka faa'iideyso waa labada isbuuc insha Allah waxaan isleeyahay علمي كورلسو إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. مقعة. هبة محمد عمار. هبة حاجة كتمت. بورما. محيو تمت. waxaan u yimid dowladda ayaan aan ka faa'iideysanayo dowladda cilmiga shareecada culimada hadalladooda waxaan fahansanayn inay fahansiiyaan ujeedkaasna u yimid walaal sidaada caadiga diinta ma barata ها ولا وان برتا محد وان دميي جامعتنا imka sanadkan ardayda dhameynaysaanahay heer sare waan doonayay inaan ka gaaro insha Allah waxaan fahminay inaan dadka gaarsiiyo cilmiga insha Allah imka kale waxa jira dad aan ciyaal yar aan cid wax u dhigtay cid fahansiisa jirin inkastoo cilmiga diintu imka soo korodhay laakiin insha Allah cid kasta oo ugu faa'iideynaya cid u baahan waalidiinta hooyooyinka ciyaalka cid kasta oo jecelahay waayo cilmiga la baray in nafcigeedii laga arkoon ugu horreyn salaam calaykum walaal magaca calaykum salaam asma ismaaciil asma halkan maxaad joogtaa dowladda darteed baan joogaa waxaan anagu imid gobolka Gabiley baad ku timid dowladda maxaad ka baranaysaa inaan wax badan ka faa'iideysto ka siyaasadan doonaya marka waxaad halkan ka baranayso maxaad doonaysaa inaad ku qabato inaan dib ugu celiyo bulshadii qabato aad waxaan u jecelahay inaan noqdo macallimad ku takhasusta shariica islaamiga kana gaadha heer PhD qarin macaan soo dhawow ardayda halkan wax ka baranaya tahay maxaa la baranaya bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah sallallahu alayhi wasallam wada aragtaano dowladan cilmiga kulli wax lagu baranayo waa cilmi diini weeyaan waana cilmi mudan in la barto nagu waajib ahna cilmi lagu liibaanayo lagu badbaadiyo adduuniya aakhiraba wax la baranayana waxa weeyaan waa hadalkii ilaahay tafsiirkii waa hadalkii nebiga xadiidkii waa siiradii oo ah noloshii nebiga iyo taariikhdiisii iyo cilmidii adaabta oo ah fiqigii marka waa cilmi mudan in la barto kii ugu macaana wax ka macaano la bartana aan garamaayo alxamdulillaah ilaahay soo waafajiyay dadka kale sanadkan nasiibku helina waxaan leeyahay sanadka dambe ku ducaysay ilaahay subxaanahu wa ta'aala waafajiyo codkaaga macnaad quraan ku akhriisay inaguna si macaan a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim qalu alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'dahu wa awrathana al-ardha natabawwa'u minal jannati haythu nashaa fa ni'ma ajrul 'aamiliin وترى الملائكة حافين من حول العرش
يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير. aad iyo aad baad mahadsan tahay. ilaah ku barkay mahadsanid sheekh doctor xasan sheekh cali warsame. ugu horeyn soo dhawow halkan ku kulanno. sheekh dowladdan maxay ku saabsan tahay ardaydu halkan ku baranaya? alxamdulilah rabbi alcaalamiin. dowradan cumar cuhmaan ka socota waa dowrad sharciya oo duruus cilmiya lagu dhigayo, kutub kala duwan iyo culimo kala duwan oo muddo aad u kooban lagu qaadanayo oo sanawaad badanna la qabanayey, oo sanadkan iyo sanadihii horeba aan ka soo qayb galay, oo arday kun gaadhaysa ka badan ay ka faa'iidaysanayaan. faa'iidada ugu weynee laga helaya waxay tahay ardayda in fasaxa looga faa'iideeyo oo wakhti aanu ka lumin, cilmi badanna muddo aad u kooban inay helaan, culimo badanoo kala duwanna ay la kulmaan. waxaasoo dhan baa insha allahu tacaala ay faa'iido u tahay. waa fursad weyn, waa mashruuc aan isleeyahay cilmiga dadkana waa jeclaysiinayaa, wuuna u furayaa. halkii ay joogeenna muddo kooban meel ka sii fiican ayay da'yarta insha allahu tacaala ay gaadhsiinaysaa. waxaa taa sii weheliya masjid baa lagu dhiganayaa, way sunnaysanayaan, waa weyse qabaan, culimmada iyo dhaqankooda wanaagsan bay la kulmayaan, dhallinyarada waxaa weeye xulka ah ee akhlaaqda wanaagsan bay kala faa'iidaysanayaan. marka waxaan isleeyahay dhinacyo badan aan ahayn cilmigu qaadanayo keliya ayuu ardaygu ka dhismayaa. marka in insha allahu tacaala laga faa'iidaysto, sannadaha dambena isha lagu hayo oo waalidiintu ubadka uga faa'iideeyaan, da'yartuna ay ka faa'iidaystaan insha allahu tacaala. sheekh doctor ilaah khayr ku siiyo. ugu dambeyn waxaan ku weydiin lahaa sheekh, wakhtiga hadda lagu jiro maxaa talo u jeedin lahayd dhallinyarada muuqaalkani gaadhayso? waxaan u soo jeedin lahaa kolley waxaa weeye xilliba xilligu ka dambeeyo fitnooyin iyo imtixaanaa dhacaya, inay alle subxaanahu wa tacaala naftooda ku xidhaan. hadday doonayaan horumar adduun iyo mid aakhiraba, inay nolol fiican ku noolaadaan, inay quluubtooda alle subxaanahu wa tacaala ku xidhaan, cibaadada ilaaliyaan, diintana alle subxaanahu wa tacaala inay ka faa'iidaystaan oo ay bartaan, oo wixii kale ay baranayeenna wax ka mida ay ku daraan insha allahu tacaala. taladaasaan u soo jeedinaya.